kulan ay yeesheen waqaasha garaadada suldaamada qurbe joogta iyo waxgaradka beesha jidwa qabsame ee ku sugan magaalada Jigjiga ayaa waxa ay ku cambaareeyeen shakhsiyaadka qaba fikradaha cidhiidhiyoon ee fadhiidka ah iyo waliba mashaqaysatanimada lidigana ku ah horumarka deegaanka guud ahaan iyo gaar ahaan horumarka ka taabagalay dhulka ay u nasab sheeganayaan waxaan odayaashu ay cadeeyeen gaashaankana u daruureen inaysan shakhsiyaadka noocaasi metelin haybta jidwa qabsame ee ay sheeganayaan waxaana ugu horeyntii kulankani furay Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Bade isagoo ku soo dhaweeyay garaadka guud ee beelweynta absame ahna gudoomiyaha odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida Itoobiya garaad kulmiye garaad Maxamed garaad Dool halkan maanta waxay isugu nimid arrin danteena ka hadlaysa oo deegaankeena ka hadlaysa oo danaheena ka hadlaysa oo horumarkeena iyo nabadgelyadeena ka hadlaysa marka intayna galin waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo maadaama uu garaadkii guud uu joogo garaad kulmiye garaad Maxamed garaad Dool garaadka kumbada garaadka Soomaaliyeed inuu isagu inoo furo inoo faafaayo waxay isku nimid kadibna halka ajidaha ka qayb qaadano bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam salaadiinta qurba joogta madaxda iyo dhalinyarada aan halkan iskugu nimid waa idin salaamaya salaanta islaamka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sida suldaanku sheegay waxaynu isugu nimidnay waa danaheena inaynu ka hadalno danaheena markaan leenahay hadda kulli hawlaha hadda maalmahan socda iyo niman aan danahoheena aan matalin kuna hadli karin magaceena oo dana shakhsiyad u hadlaya meelaha ay ku shirshirayaan aynu maqalay jawaab naga ma aha inaan xagan aan ka siinayna iyaga sababtoo ah isku maqalanno inaan iyaga jawaab siinana isku ayni manihin marka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka iyo odayaasha waxaynu iskugu yeedhnay oo idinku yeedhnay waxa weeye kow inaan danaheena ka hadallo laba wixii jira inaynu cadayno kow deegaankani 25 sano markuu isbedel ku bilaabmay ee Itoobiyada cusub ay dhalatay deegaankeena dhibaatooyinkii soo qabsaday si ummadaha kale Itoobiya ay uga faa'iideysanayeen isbedelkii dhacay ummadeena Soomaaliyeed si dib ugu hadhay rag waaweyn baa meesha fadhiya inteena badanka aynu yaraanay waynu garanaynaa dhibaatooyinkii deegaankeena la soo maray laakiin 8 sano ee ugu dambeysay horumarka iyo nabadgelyada iyo wanaagga ay ummadda Soomaaliyeed heshay kaas mid nimanka aan hadda sheegayno ee meelaha ku shirshiraya danahooga ka hadlaya waa mid ay ka marakaceen oo media-ga ku jirta oo Facebook-ga ku jirta oo ku jirta YouTube-ka oo cid walba oo Soomaaliyeed ay daawan karto maanta deegaanka Soomaalida xilligii qabiilka uu hadlayay ma joogo inay qola tiraahdo qabiil baa anagoo aasaasa xilligeedii ma taagnin oo waliba ku hadlayso magaceena inay ku hadlaan nasiib darro inoo tahay sababtoo ah anu hadda maanta waxaan ahay garaad Soomaaliyeed oo deegaanka Soomaalida oo dhana deegaan ma yihi oday qabiil ma yihi xataa beeshay caleema saartay magaceega kuma hadlo waxaan ku hadlaa magaca ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan degan waxaan inta aniga guurtidaydu hawlahan qabano waxa ka sii badan ummadda Soomaaliyeed ee kala dariska inala dawladaha waxaan nabadgelyada aan ka soo dhaxabuurno marka maanta inaga magaceenu kii dib u noqonayay qabiil ama inaynu Soomaali hogaamino inaynu Soomaali dhibaatadii ku jirta ka saaro ayaynu hormood u nahay marka waxa weeye nimanka magaca sheeganaya ee nimanka ah ee 4 nin 5 nin ah de ummadan magaceega ma matalaan saan hadalkayga ku bilaabayna jawaab uma aha waxay meelaha ka qabanayeen koow magaca waxa ku hadla salaadiintii suldaankii beeshu waa ka salaadiintii iyo garaadkii waa kan aan garbihiisa fadhino cid maanta magaca ku hadli karto oo anaga ahayna ma jirto ummadda Soomaaliyeed inay ogaato way iyo dadka aan madaxda u nahay ana u tagi doono waxyaalaha ay sheegeen laakiin haddana guud ahaanba inuu shirkaasi uu yahay sharci darro oon xalaal ahayn oo niman danahooga shakhsiyadeed oo waliba anagu ku tuhumayna in farashishay ay ku jiraan inaad ogaataan kuwa dibadda joogana ay ogaadaan maanta anaga magacan anaga un baa ku hadli karra marka anu waxaan leenahay arrinkaasi waa sharci darro
waxaan si gooni ugu diraynaa labada nin ee hormoodka inay danahooga shakhsi gooni hawlaadsadaan magaca mas-uulka kuma hadli karaan kuma qaraabsan karaan shacabna ummadda Soomaaliyeed baan ka raadinaynaa maanta ummadda Soomaaliyeed xilli qaliil ay ku kala jabtay wadasho ma joogno dhibaatooyinka inagu xeeran waa ognahay Soomaaliya waxa ka taagan waa ognahay maanta marka in qabiil laynagu celiyo oo waliba inagoo Soomaali maanta hogaaminayna aan dib u noqono nasiib darray nagu tahay magaceena nasiib darray ku tahay waan diidanahay waan ka soo horjeednaa waan cambaaraynaynaa sharci darrana waan ku tilmaamaynaa shirkaas taas waa inta ta kale waxay ka hadleen qodobo aan meelaha soo dhigdhigeen iyagoo shakhsiyaad ummaddu wax way taban kartaa cidda tabanaysaana dee cid Maraykan joogta maaha iyagu Trump ha ka tawdaan iyo wadamadooda nimanka jooga ka tawdaan nimankaasi waa shisheeye baasaboorro wadan kale haystaan dadka jidwaaq maxa magacooga ku hadla waa annaguna maanta jidwaaq wax la yiraahdo ma taagnin saddexdii suldaanba saddex Soomaali hogaaminaysa way salaadiinta kale ee reeruhuna dadkii Soomaali hogaaminayay way marka maanta in niman shakhsiyaad ay dib noo celiyaan kama yeelayno waxay ka hadleen dib u curasho aniga shakhsiyan garaad ahaan waxaan soo qabtay dib been ka sheegi maayo waxba lama qaban bay yiraahdeen aniga shakhsiyan waxaan qabtay dib u curashada qabtay dee anigu been ka sheegi maayo anigii baa markhaatiya una dayn maayo dowlad iyo cid kale inay ka hadasho isku difaacdo hawshii aan goday ka soo qabtay inaan raado waa been waxba kama jiro dad baa loogu daneynay waa beentood waxba kama jiro ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degan way ka faa'iideeyay dib u curashadii waa la isbartay waa la walaaloobay horumar baa yimid nabadgelyo timid ninkii aqli laba uu garanaya anna waxaan islahayn dad ilbaxay oo Soomaalinimo iska day pan africanism rag wax bartay oo Afrika in la isku keeno oo dhaqaalihii la isku furfuraan ka sugayni maanta inay halka ka buskiciyaan iyagay nasiib darro tahay inaga gudaha joogna Soomaali baynu hogaaminayna waynu isognahay hadal kama taagno marka waxaan leenahay dib u curashada ummaddu way ku faa'iiday dadkay magacooga sheegayaan way ka faa'iideen degmooyinka la bixiyay ba cadeyn u ah maamulka la dhaadhiciyay ba cadeyn u ah maamulada councilada cadeyn u ah horumarka magaalada Jigjiga ka socda cadeyn u ah talabaad Jigjiga maanta magaalo qabiil ma waa magaalo Soomaaliyeed Soomaalida deegaanka degan kaliya ma ummadda Soomaaliyeed ee hanti haysata ayaan ugu baaqaynaa inay wax ka dhisato tolkaya waxaan leenahay odayaasha u nahay de nimankaasi wax kale wadaan annaga salaadiinta hadayna afkan biyayaan de cidii yur oran lahayd waa idinka daliya dibadda waxbayaan hadalka ku tuman salaadiintii odayaashii baa iga dambaysa innaga wixii ummadeena loo qabtay inaynu ka marakacno ayaa la rabaa biyaha leh leyd kale ee waxbarashada leh ee horumarka leh magaalada haddaba garaadka oo hadalkiisa sii wata ayaa caddeeyay isla mar ahaantaana hoosta ka xariiqay inaysan magaalada Jigjiga aysan ahayn magaalo ay beel kaliya sheegan karto balse ay tahay xaruntii deegaanka oo iska day inay kulmiso bulsho weynta deegaanka oo dhan ay xarun kulmiso u tahay Soomaali oo dhan meel kasto ay dunida ka joogto waxauna ka soo dadka Soomaalida ah ugu baaqay in cid kasto oo rabta inay maal gashato deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga in iyadoo aan loo eegayn midnaba diinta midabka dhaqanka iyo luqadda inay tahay magaalada Jigjiga mid u furan cid kasto oo maal gashan karta khalad weey in magaalada qolo gooni ay sheegato saan sheeg cid walba aan ugu baaqayna hadda cidii hore u joogtay iska daa cid walba oo Soomaaliya cid walba adduunka oo ibni aadan oo lacag haysata inay Jigjiga timaado oo warshada keento oo horumar keento baaqiyaga weey Jigjiga iska daa qabr bayax baan ahay dhaqaale bay ka hadleen ganacsato waaweyn baan leenahay ganacsato yar baan leenahay annagii odayaasha ganacsato marka de daruurta cirka Ilaahay cidba ma wada gaadho kolba cidba u iman in la samro way anu hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa dan reereed kama ina hadal dan shakhsi bay ka hadleen shalay bay ahayd kuwa meel walba ka marakacay ee laha nabadgelyo ka jirta horumar baa ka jira aniga hotel dhistay aniga xaqan soo maray laha marka maanta haddana haday yiraahdaan wixii waxba kama jiro
taana waxaan aragnaa inay farshisheeyo ku jirto oo cadow innagana waxaan leenahay dawladdeena innaga iskale maanta cidna ugama daba fadhino jigjigana cidna ugama daba fadhino maamuladeennana cidna ugama daba fadhino hadday dhab ka tahay nin walba laba maqsin oo guriga jigjigaa ka soo dhisa hadday waxaasi runka tahay ay sheegayaan oo waddankan nin laba maqsin oo alawaad oo la kireeyo kula ma jiro marka tiisa daryeela tu kala ku dara marka waxaan leenahay ka noqdaan dadka iyaga jooga dibadahana ha ka goostaan waxay sheegayaan waxba kama jiro annaga odayaashiini annaga nagu soo xidhma wasalaamu calaykum salaadiinta kale ku sidoo kale suldaan cabdiraxmaan suldaan bede oo kulankani ka hadlay ayaa ku nuuxnuucsaday inaan shakhsiyaadka qaba fikradaha cidhiidhyoon ee nabaddiidka ee xolo-cirdoonnimada qabyaaladda iyo wixii la halmaala inay yihiin kuwa gabalkoodu dhacay oo aan danaha ummadda ka shaqaynayn balse wata dana gaara oo u adeegaya cadowga deegaanka sidaa daraaddeedna uu sheegay in looga baahan yahay dadka ku abtirsada beeshani jid waa qabsame ee ku nool gudaha dalka iyo dalka dibaddiisaba inaysan dheg jalaq u siinin shakhsiyaadka noocaasa magac biiska wada wixii aan oran lahaa oo dhan bagaraadkaa yidhi arrintaa ka hadlaynaa waa shakhsiyaadkaas dibadaha jooga ee magaceena sheeganaya ee annaga welibana afgebiga lagu hayo mid baa wuxuu la baxay maxamed suldaan bede ama suldaan maxamed midna garaad cumar buu la baxay ma idinkaa doortay mise cid kala dooratay horta waa sidaas waa sax aad baad u baasantihi dadka kale meelaha jooga dibadaha jooga diasparaha ee walaalaheena waa dadkaas saadituunahay waa dadkaan matalo waa dadkii aan halka ku wada noolayn ee halkaa tegey waxaan leenahay walaalayaal iskaga hara nimanka tuugta ah ee shakhsiyaadka ah ee aragti shisheeye ayaa ka dambaysaanu leenahay nimankaa maanaan wada dhalan waa tuug waa digjir waxa weeya waa dad ay matalaan oo magacan guud sheegan karaan horta ma jirto magaca soomaaliyeed maanta ama soomaalida etoobiya ama soomaalida kililkeena cidda matashaa waa annaga kow garaadkaa ka mid a garaadku ma qoyskeenu matalaa ma matalo soomaali oo dhan buu matalaa waa looga wada dambeeyaa ilaa meel kastoo ay soomaali joogto ayuu matalaa taana sharaf baynu ku leenahay maanta hogaankii ummadda soomaaliyeed waa innaga ku aan dhaliyo kii dhaqankaba labadaba waa innaga horta inaynu noqono bisadii dhasheeda cunaysay miyaa tahay maanta ma ah ma noqon karno maxamed bede hal guri kuma laha magaalada wuu iman jiray 6 jeer buu yimid guriga madaxweynuhu ka cunayey uu ka qadeeyey oo soo dhaweyn jiray oo wax walba uu qaban jiray in maanta uu noqdo saxankii wax ku cunayay inuu ku xaalo soo ceeb maaha waa gudnigo nin fujaanku wax ku cunay ku xaala dee waa gun kaasina dee noo matalo cumar bay noqotay cumar raggii ugu horreeyey ee tegay maraykan buu ah ya caruurtiisi waa bilaabiilo wallaahi soo magaciyaa ma halkii degayhii waa bilaabiil makaasaa magac maanta mateli kala ma matelaan baanu leenahay dowladayadu horumar bay noo qabatay waanu ku jecelnahay waanu ku taageersannahay waanu ku garabanaynaa welibana habeeniyo maalinta maxamed bede isagaa jidwaaq isaga maaha in saa loo ogsanaado waa midda labaade nimankan aan qaaraanka u weydiino dee qaaraanka uma soo bixiyaan maktaba lama bixiyaane dadayna magtooda maanta aan ka bixinay xataa in yani ay u hadlaan ama yani maanta waan matalaynaa ama waan ku hadlaynaa magacooda yaraan runtii innaga sharaf daro nagu tahay waan ogsoonnahay jidwaaq maanta waxay heshay 7 sano iyo 8 sano ugu dambeysay 20 sano iyo intii awalba deegaan kusoo noolayd mayna helin xaqiiqatan markaan run wada hadlayno waxa degmooyin u soo biiray waxa mashaariic u soo biiray waxa horumarada u soo biiray dee magaalo walba iyo degmo walba iyo markii la magacaabana iskuul iyo caafimaad iyo wax walba way ka helayaan wax dambana wax badanna dawladdu waanu ka filaynaa waanu ka sugaynaa waanan aaminsanahay inayna noo hirgelin
كل أنا هالكي كاسن كسو كوبيا وحان لنا نمان كاسو نمان كاسو مثلا أفر تروح وأفر شخصي dan jidwa kama hadli karaan ugu dambeynna waxa kulankani ka hadlay odayaasha dhaqanka culimada waxgaradka iyo qurba joogta beelweynta absame oo hadalkoodii ku soo cabiray inaysan shakhsiyaadkaasi marnaba metelin oo ay garab taagan yihiin horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka hana qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya